dalka Turkiga ayaa mar labaad loo aqoonsaday inuu yahay dalka ugu deeqsiisan adduunka marka la eego caawimada bini'aadanimo ay dalalka adduunka qaadhaanka u bixiyaan isaga oo sanadkii 2018 oo kaliya deeq caawimo bini'aadanimo u bixiyay lacag dhan 8.4 bilyan oo dollarka Mareykanka halka uu sanadkii kaas ka horeeyay ee 2017kiina ku bixiyay deeq dhan 8.1 bilyan oo dollar. hay'adda caalamiga ah hindisayaasha horumarinta oo diiradda saarta kaalin qaadashada dadaalada dabargoynta saboolnimada iyo xaqiijinta horumarka adduunka ayaa warbixinteedii u dambeysay ku sheegtay in sanadkii 2018 caawimadii adduunka oo dhan lagu qaybiyo 29% kamid ay ahayd deeq uu bixiyay dalka Turkiga oo kaliya waxaanu sidaasi kaga horumaray dalalka Mareykanka oo bixiyay 6.8 bilyan oo dollar, Jarmalka oo bixiyay 2.9 bilyan oo dollar iyo dalka Ingiriiska oo bixiyay 2.2 bilyan oo dollar. dalka Turkiga ayaa sanadihii 2013 ilaa 2014 kaalinta saddexaad kaga jiray deeq bixiyaasha adduunka, laakiin sanadkii 2015 ilaa 2016 ayaa uu u soo booday kaalinta labaad isaga oo labadii sano ay u dambeeyay noqday dalka kaalinta koobaad kaga jira gacan ka qaadashada gargaarka bini'aadanimo ee adduunka oo dhan ka socda. meelaha ugu badan ee uu Turkigu ku bixiyo caawimadiisa ayaa ay warbixintu ku sheegtay dalalka Suuriya, Yemen, Koonfurta Suudaan, Ciraaq iyo Soomaaliya. sida oo kalena dalka Turkiga oo ay joogaan 4 milyan oo dad qaxoonti ah ayaa noqday dalka qaxoontiga ugu badan adduunka martigeliyay. qaxoontigaas ayaa sida lagu ogaaday tiriko bishii ina dhaaftay ee September la sameeyay waxa kamid ah 3.6 milyan oo qaxoonti Suuriya u dhashay. warbixintu waxa ay sheegtay in muddadii uu talada Turkiga hayay xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee AK Party oo uu madaxweyne Erdogan hogaamiyo in ay si weyn kor ugu kacday gacanta uu dalku ka geysanayo dadaalada adduunka ka socda ee caawimada bini'aadanimo. taasi ayaana sabab u noqotay in dalka Turkigu martigeliyo shir madaxeedka gargaarka bini'aadanimada ee adduunka oo ahaa kii noociisa ugu horeeyay ee ay qaramada midoobay u qabato isku duwidda dadaalada gargaarka bini'aadanimada. hay'adda TIKA ee dawladda Turkiga u qaabilsan gargaarka dibadda ayaa hogaamisa caawimada bini'aadanimada ee uu dalkaasi dunida ugu deeqo waxaanay si aad uga shaqaysaa bariga dhexe, koonfurta Mareykanka iyo Afrika oo ay ka fuliso mashaariic isugu jira gargaar bini'aadanimo oo degdega, dhismaha cisbitaalada, xarumaha waxbarashada iyo mashaariic kale oo kaalin ka qaata horumarka. bisha cas ee dalka Turkiga oo iyaduna kamid ah meelaha uu Turkigu adduunka u mariyo gargaarka ayaa sanadkii 2018 oo kaliya gargaar bini'aadanimo gaarsiisay 23 milyan oo ah dad caawimo u baahan oo daafaha adduunka ku nool. xamse xirsaxayd wararka laanta afka Soomaaliga codka bariga Afrika.